adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan wali ka dhicin waa kow haddana saraakiil baa xidhan ninka daldalani ka mid yahay waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka haalmis rubban ku sheegnaa taana diriyeel baynanka xagtini gaadho jaamacow aday dushaada saaran boqol ka cishana wixii dhib dhacay intaas oo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaan warbalu kaadiya wasaaradihii qayla ka soo yeedhisa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol waxa baa la sheegay arrintaas saaka ka hadlaya waxa weeyaan taliyaha sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha sirdoonku wuxuu taarget gareeyay oo si bareera oo gabasho lahayn uu weeraray ciidamada sirdoonka wixii kaga jiray beesha Habrawal 140 nin oo saraakiil iyo ciidan bay isugu jira oo sirdoonka qaranka ah ayuu dil ku xukumay dilka uu ku xukumay waxa weeye caalamka waa ka mamnuuc ninka sirdoonka qaranka ah oo sirdoonka dawladda ah in magaciisa iyo sawirkiisu inay baxaan 140 nin buu bacadka u waray 140 ka kiyo bacadka u waray waxa ahayd qarankii Soomaaliland oo la dumiyay ay ka dhigantay wuxuu haddana ku daray inuu si bareera saraakiisha u xidhxidho wuxuu ku daray inuu seelada ku xareeyo waxa mamnuuca nin sarkaala hadduu xataa dambiba galaamo dhishbiliinba loo xidho in seelada la geeyo silsilad lagu jabiyo waxa laga wada dharagsan yahay maanta baraha bulshada inay saraakiil ciidanka sirdoonka iyagoo silsiladaysan inay baraha bulshada oo laga yaxayo feedhaqaawan oo la daldalay inay baraha bulshada yaacayaan sawirradooda adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan wali ka dhicin waa kow haddana saraakiil baa xidhan ninka daldalani ka mid yahay waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka haalmis rubban ku sheegnaa madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay qalinkaagu ninku magacaabay in marka reer xasuuq lagula dhaqaaqo haddaanad raalli ka ahayn arrinkaa jooji arrintaa madaxweyne haddaana doonin inaynu ku kala fogaano oo lagu kala dhaqaaqo inaad weliba raggaad soo magacawday haddana xasuuq la dhex galaan Habrawal oo niba meel oo ciidankii maanta yaa difaaca qaranka yaa difaacaya waaye marka ciidankii qaranka sidaa loo galo ee sirdoonkii qaranku maanta markaasaa weliba wuxuu sameeyay ninka jaamac la yiraahdo isaga ka jawaabi doona waxa sababta colaadan halku ka keenay isaga ka jawaabi doona wuxuu weliba sameeyay raggu sidaa bacadka ugu wadho haddana weliba transfer bedel uu diray gobolada bari oo si loo laayo way taana diriyeel baynanka xagtini gaadho jaamacow aday dushaada saaran tahay waxaa leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka madax rag buu nagu joogaa waxaanu tabanaynaa waa halkeeda tabashadayadu waa halkeeda iyo wixiina soo kala maray intaad xukunka doonaysay madaxweyne laakiin dhaqdhaqaajin time ka bilaabantay tuwaanu reer ahaan dhageysanayno oo yeelayno maaha saraakiisha inta xidhan hadda faraha laga qaado arrinka horena xaal marinteedii baan ugu fadhinaa ninka sirdoonka qarankina reer buu ka dhashay haddii maamul iyo nidaam la raacayna madaxweyne adiga magacaabay hadday isagiyo reernimadiisa ku kooban tahayna dee annaga ka xisaabtami doono reer buu ka dhashay oo waxa nagaga maqan isaga dee sheegi doona inta xidhan imika oodaha laga qaado boqol ka cishana wixii dhib dhacay intaas oo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaan warbalu kaadiya wasaaradihii qayla ka soo yeedhisa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol waxa baa la sheegaya waxa kale oo dhan waa la isaga iman doona imika ragga xidhan oodaha laga qaado ninka jaamacna ama waa nimaad madaxweyne adigu magacawday diina kala gaad 100 mitir buu jira madaxtooyada xafiiskiisa oo wuxuu waxa ku sameeyay waajibkeeda hal mar sharciga hal mar maxkamadda la hor keenay wuxuu yiri baa lisaa markuu meesha yimid reer baa ka buuxa waxyaabaha la sheegaya wax macquul ma aha hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne jaamac taliyaha sirdoonka adaa magacaabay nikala gaad inta ay ka badan waa dulmi lama qaadi karo annagoo qarannimada ilaalinayna annagoon xumaan ka shaqaynayn ya
laakiin adeer nama qabata arrinkaas nimadaasi adeer waa xooggii dalka waa raggii dalka xoreeyey rag ayaa dhalay walaaladood baa dalkan xoreeyey adeeradood baa xoreeyey aabbayaashood baa xoreeyey wixii siyaad barre laga diiday adeer in maanta daldalaadi ka dhacdo xaafadda 26 juun dhexdeeda yaa koodbuur dhexdeeda in daldalaadi ka dhacdo oo social media la wareejiyo arrinkaasi wax soconayno dhageysan kareen ma waxa la madaxweyne arrinta si degdeg ah wax uga qabo halkaas ka baxayo. Assalaamu calaykum.